بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن آد وسلام يا أصحابتك وحنا جنك فردوس تساني وحن هاد علينا يا أصحابتي هره وحن وكم هالسنتين وحن هاد علينا يا أصحابتي الضنب والله جزاكم الله خيرا. وحن أباقي يا أصحابتي عرفته كليب كيجن بليز وحن ذكر عصا وسبسكرايب لايك شير كومنت عافي ما تغبى ولا شيء نو إذن له إذن كلا أهدي رمضان مبارك. إلهي بحينجو إلهي وحن كبرينا بشان رمضان فضلك بدن له إن أينو مريه ده يو منافعات كده هلا إلهينا وإنه أقبله إن أنت هنا صومن إن أنت صومن إيشفن إلهي إنه عافي ما تكسيه إن دم دمانت إن إلهي دم بدافع وميزان كحسنات كإنه قدره بيشنا وبالوين وبال أي مسلمين تصنت كي أردن أي سوياني إلهي وحن كبرنا إنانو كبير درينين إلهي وحن كبرنا إنانو كبير درينين إلهي وحن ويديسنا بشهر رمضان أنت الدنيا ذا كعيلنا إنه إلهي الدنيا ذا كعيل تروح أنت عافيمات رادينيسا إلهي عافيمات سيو أنت والولسن إنه إلهي والولك كدو القابو أنت waxaan ku yiri meelaha ku gadoontay ee safarada ee xanuunada ee gadoontay ilaahay inuu gadoonka uga saar uga dhigo dambi dhaaf ilaahay waxaan weydiisanaynaa in kasta oo qof kasta oo kurba adduun haysta inuu kurbada adduun la ka faydo inteena dadaalaysa ee ajar iyo xasanaad bishan Ramadaan ka raadinaysana inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro idinkuna ha bakhaylina aamiin tradhaha in waxaan horta idinka raali gelinayaa waa maqnaashaha waxa aad jeceshihiin haddii aad YouTube-ka aad ku xidhnaataan inaad heshaan qofkii waan idinka raali gelinayaa insha Allah biidnillah marbaan online noqon doona nimcada adduunyo la iska shaqeeyaa nimcada adduunyo ayaa la iska shaqeeyaa nimcada adduunyo markaad iska shaqeysana كليات إن لقى على معها وين لا إله هذا الحمد لله رب العالمين وحو الله بكينه الحمد لله عاجز بس كتير إله حنبري ياينو سنة نقول نبض عاجز كنا وقد القاضي واحد شرح حنون كورونا فيروس حتى لبعض سنة كي لبعض وكان إنه بصوق لي وحن إلهي ويدي سنة إنه عذر كان إنه قد قطت كي وحكو برتي أنت يعني كل ما تينا إلهي إنه عافيماتها إلهي إنه أنتني كل ما تينا وجنة الفردوس وقليو أنتنا لبقتها إمك وخيانا إلهي وحن كبرينا إنه كفيدو أو عافيمات تامة وسيو إن رنتي وحويان حل أذق بالجشرة حل أدو أذق أياب الجشرة حل جا أذقنا إذا قال حمضة رمضان تصوق شيء كورونا فيروس dadkii albaabadii u wada xiray waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu dambi dhaaf afis iyo caafimaad ilaahay inooga dhigo afis iyo caafimaad inteena ku dhacay afis inuu uga dhigo inteena uu hayo hadana ilaahay caafimaad siiyo inteena murugaysan ee walwalsan ee adduunyo iyo fakhri iyo mashaqo ka walwalsan inuu ilaahay mashaqadii walwalka ka dulqaado hadaba waxa jira dad ilaahay u nimceeyay dad intuu ilaahay u nimceeyay nimcadii alxamdulillah aan oranin ilaahay baa u nimceeyay laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin cidama oranin waa lagu kibray waa lagu qooqsan yahay cudurradan ilaahay waa ka badbaadiyay faamiligiisii kuma geeriyoonin cid ka mid ah isagii xanuunkii hadduu xitaa ku dhacayna ilaahay safar buu uga dhigay ilaahay wuxuu siiyey adduunyo ilaahay wuxuu siiyey caafimaad ku hadlo oo ku doodo ilaahay wax kastaba uu siiyey alxamdulillah lama oranin iyagiiba is xaganaya iyagiiba social media isku qabsanaya iyagiiba aan isu ceeb asturayna nimcada hadduu alla intuu ku siiyo aad oran weydo alxamdulillah ilaahay waad ku gaalowday waanad ku kufurtay adiguna waxaad mutaysan doontaa cadaab la shadiid ciqaab daran baad mutaysan doontaa haddaad tiraahdo nimcadu rabbi ku siiyey alxamdulillah ilaahu waad nasiisay noo siyaadi kuwa aan haysan nasiina aad tiraahdana
ilaahay wuu kuu kordhin waana kuu siyaadin. haddaba intaa haddaan aaraarka ka soo baxo waaban idinku dheereeyay. maanta maxaan rabaa inaan ka hadlo? waxa aan rabaa inaan ka hadlo wiilkan iyo gabadhan sawirku idinka muuqda. wiilkan iyo gabadhan sawirku idinka muuqdo. wiilkan iyo gabadhan waa dad isqabay, waa dad nolol isla wadaagay. ilaahay haddii aad noloshii aad isla wadaagteen oo aad noloshii wada gasheen in aad tiraahdaan oo keliya tabay ahayd, alxamdulilaah. haddaad kala tagtaana dee waa ilaahay baa keenay oo furiinka iyo guurkaba ilaahay baa labadaba soo dejiyey. ilaahay baa suuratulbaqara ku sheegay. haddaad qofka nolosha wada wadaagteen, alxamdulilah rabbilcaalamiin, ood si wacan isku qabteen. haddii kale oo aad kala tagteen na dee waad kala tagteen. laakiin labadooduba runtii waxa ay soo bandhigeen, gabadhuna waxay soo bandhigtay ceebihii ay ka haysay, ninka laftigiisuna muu yaraysanin. markaa waxaa laysku noqday, saasaa layskugu noqday. laakiin anu maanta waxaan jecelahay inaan ina xasuusiyo gabaygii maxamed warsame hadraawi. muxuu yidhi? dan iyo dugashay dan iyo dugsashay lahayd. qofka dantu hayso iyo dugsashadii kolle waad fahmaysaan. dan iyo dugsashay lahayd, deeq iyo hirashay lahayd, dudiya gacal bay lahayd, xishood dadan bay lahayd, duxiyo sodoh bay lahayd. sodohdii maanta sodohduna ka xishoon jirtay inanka inanta qabo, inankuna ka xishoon jiray sodohdii. hadda heer waxaa la marayaaba laga soo duubo codod iyo sodohdii oo hadlaysa. sodohda sooti la yidhi hadalkeedu waa inaanu meel dheer gaadhin. hadday inanta waxu sheegaysa hadday inanka waxu sheegaysaba inuu codkeedu gaabnaado. laakiin de waaba la baahiyey, sodoh la baahiyey ka sheekeeya. duqiyo sodoh bay lahayd, dumaashi dhan bay lahayd. xad iyo xuduud iyo xeer ayay dadku kala lahaayeen. maxamed warsame hadlaawi ilaahay cimriga ha u barakeeyo. muxuu yidhi? dumaashi dhan bay lahayd. wiilku gabadhu dumaashigaya waa la kala xishoon jiray. adigu dumaashi dhan bay lahayd, dad kala guran bay lahayd. qof waliba xeerkiisa iyo xadkiisa muu soo dhaafi jireen. dumaashidu xeerkeeda, seedugu xeerkiisa, sodohdu xeerkeeda, sodogu xeerkiisa, gabadha la qabaa xeerkeeda kamayso. hadda laakiin waa isku walaaqo. xaaladii ha la isku walaaqdo bay noqotay. rag iyo dumar bay lahayd, nin door taliyay lahayd, rag iyo dumar bay lahayd, nin door taliyay lahayd. marwiyo degal bay lahayd. duqiyo garashay lahayd. haween darban bay lahayd, barbaar diran bay lahayd. hablo dardaray lahayd oo shacni hawsha si qurux badan u qaban jiray. habliyo dardaray lahayd, halyey diriray lahayd. halyeygii hadda wuxuu noqday inuu ceebaha gabadhiisa, sodohdiisa, cid walba uu soo bandhigo. halyeygii diriri jiray, cadowga la diriri jiray, geela soo dhicin jiray ee cadowga hadduu reerka kusoo weeraro cadowgaa ka weerari jiray. waxaabuu fariidnimadiisii noqotay inuu walaashii kursado, inuu hooyadii dilo oo uu naftaba ka jaro, sodohdii ceebteeda iyo hadalkeedii soo bandhigo. gabadhiisii uu nolosha la wadaagay sircadood intuu ka duubo banka soo dhigo. subxaan allah, ilaahay waxaanu ka magan galnay mid ceebahayaga qariyo mooyaane ma anaan ku weydiisan mid ceebahayaga banaanka soo dhiga. rajayna maayo insha allah biidni illaah, in badanoo wanaagsanna kama rajaynayo. barbaar diran bay lahayd, hablo dardaray lahayd, halyey diriray lahayd, darmaan boqoran bay lahayd, dudiya oday bay lahayd. duda iyo oday, dudada waynu garanaynaa waa meesha dabaysha dhaxanta wax walba inaga celisa. dudiya oday bay lahayd. da-weyn iyo halkaasaan galay. da-weyn iyo da-dhaxay lahayd. waayo da-da waaweyni isku sheekay ahayd, da-da dhaxana isku sheekay ahayd, da-da yaryari isku sheekay ahayd. hadda laakiin da-dii waaweyneyd ee duqayda ahayd ilaa iyo ilmihii dhashay baa isku sheeko noqday.
sharafina dhimatay markaa wataa bankii laysi soo dhigay lays ceebeynayo da weyn iyo da dhaxay lahayd da-aad yaryar bay lahayd da-aad yaryar oo iyagana kasii yar da-adaa dhexeeya da-adaa weyn da-aad yaryar bay lahayd isdaadihin bay lahayd da-aad yaryar bay lahayd isdaadihin bay lahayd noloshu sidaasay ahayd qofkii fahmaya gabaygan ayaa fahmaya waxa aan leeyahay war ha laysu ceeb asturo biliis ha laga xishoodo bisha ramadaan ha laga xishoodo dumarkan iyo raggan isfadeexadaynaya ha layska dhaafo waxaan arkayay iyadana kowsarliinana insha allah berri ama haddii alla ka dhiga xilligii alla ka dhigaynu ka hadli kowsar inanta kowsarliina iyo mooha wiilkaasi 3 bilood ayay waxay iyaguna jilayeen guur baraanki ah kaa berraynu ka hadli waynu dhigan doonaa insha allah markaa dadkii commentiyada hoosta kusoo qorayay waxay yidhaahdeen hawl kalaa noo taala hawl kale ayaabaa noo taalo oo ah rasmi rays iyo odageeda idinku dib noogu dhiga aad baan wallahi ugu qoslay fani dadka soo qorayay waxaan idinkaga tagaa waa walaashiin Farduus Xasan Cabdilaahi oo idin leh ramadaan mubaarak ilaahay haynaga dhigo ramadaantan dadka kuwa ka faa'iideysta rabadaanteedana caafimaad iyo cimri barakaysan ina siiya iyo iscafin ilaahay baynu baryaynaa aan weydiisanaynaa ramadaanta mar labaad waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak